بسم الله الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد ولو حين كجرنا بشي محرم شهر الله المحرم بشي وينيت خير كيدو بدنا وحين قصوا خضرنا فضلق بشان أي لاذا هاي إنه يتهبل ونبي نجعل عليه الصلاة والسلام إنه صوم كذا بديو وحين صور شيء بشان إنه كجر تمانته يلو يقان مالنت عاشوراء أو مالنت الطبانات bishaan muxaram markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam intuusan dhiman ka hor ayuu wuxuu sheegay haddii aan gaaro sanadka dambe waxaan soomayaa maalinta sagaalaad ee maalinta tobanaad taasuuca baa yidhahdaa marka maalinta sagaalaad caawa oo isniin soo gelayso waa taasuuca waa habeenkii sagaalaad ee bishaan muxaram wuxuu nabigu sal allahu alayhi wasallam saa u sameeyey waxay tahay inuu khilaafo ahlu kitaab yahuudi nasaaro sidaas uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam inuu khilaafo inuu meel iska soo gelin laakiin anagu hadda wax walba waa inuu kaga dayan waxaana muuqata wixii uu ka digay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahayd in aan tilaabo kasta ay qaadaan iyo meel kasta ay maraan inaan mari doono xataa haddii ay galaan masacagalay godkeeda inaan la gelin yacni sidii aan ugu daba dayanayno waan u jeedaan maantay isaga warrami mayno waxyaalaha muuqda hadday dhalinyaro noqoto hadday odayaal noqoto hadday dumar noqoto markii la isbarbar dhigo afcaasheenna iyo dhaqankeennu sida uu yahay iyo nabigeena salawaatullahi wasalaamu calayhi sida uu u jeclaa inuu khilaafaayey waa kaafi kala dheeri wey waxa aad iyo aad u kala dheer maalinta cashuuraa soomkeeda intaasaan kaga baxayaa maalinta haddaad fiirisaan waad aragtaan iclaamka iyo meydhiyaha warbaahinta aad fiirisaan waxaa jira waxyaalo kale oo lagu laro maalintan khaasatan madhabkan shiicada la yiraahdo maraafidadu waxyaalaha ay samayso ah maalintaas inay u tahay maalin murugo maalin oohin maalin isgaraac maalin noloshooda oo dhan ay burburiyaan iyagoo markaas dhahaya maalintan cashuuraa waa maalintii la dilay حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويلكي وأبوها وها سيدا درادت مالنتان أو مكا عاشوراء كباقني دلك حسين waxay ka dhigan iyagu u bedeleen maalin murugo waxa kaloo jira inkastoo hadda ay aad u yar tahay koox kale oo iyagu maalinta cashuuraa kuwan kale cagsigood ah maalintaas ka dhigta maalin ciid maalin damaashaad maalin farxadeed iyagoo ku faraxsan dilkii xuseen ibn cali radiyallahu anhu wiilku nabiga sallallahu alayhi wasallam oo albaytka ahaa nawaasiba qolooyinka la yiraahdaa cuntay qaybiyaan xalwaday qaybiyaan nacnacbay qaybiyaan dhar cusub bay gashan sidii ciid oo kale ka dhigtaan saan sheegnay laakiin hadda wax muuqda ma jiraan imagaas oo nawaasibta hadda wax muuqda oo la arko ma jiraan laakiin dhankan kale shiicada iyo isgaraacooda iyo isdilkoodu waa wax muuqda wey sidaa daraaddeed waxaa isdhex gashay fadligu nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintan ku sheegay cashuuraa ee ah in la soomo iyada oo lagu dayanay nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabiguna uu yidhi nabi muuse calayhi salaam annaga yuhuuda idinkaga owlaysan sidaa daraaddeed loo soomay oo cibaado ay tahay oo aan rajaynayno ilaahay subxaana wa tacaala uu dembigii sanadkii hore naga dhaqo oo muxuu naga tirtiro daniga waa soo sheegna waa saqaa'irta wey ama kabaa'irtu waxay u baahan yihiin toobadii iyo shuruudeedii toobadii wadatay shuruudeedii muctabarka ahayd su-aashu waxay tahay marka xusein ibn cali radia allahu canhu oo la dilay oo saxay tahay in la dilay yaa dilay xusein ibn cali radia allahu canhu oo shiicadu isu garaacayso u murugaysan tahay horta yaa dilay xusein waxaa dila shiico dilkiisana sabab waxaa u ahayd shiico iyagaa u yeertay iyagaa lugooyey iyagaa garabkiisa ka baxay meel cidlo ah iyo bannaan iyagaa soo istaajiyey arrintaas sidee u dhacday ayaan doonayaa insha allahu tacaala inaan ka hadlo oo bal aan caddayno dilkii xusein ibnu cali radia allahu canhu dowrka ay ku lahayd iyo inta ay ka qaadatay shiicadu shiicadana maanta isu garaacaysa
isu bihinaysaay inay sabab u ahaayeen inay iyagu dileen sababna u noqdeen dadkii meesha lagu laayay aalu beydka ahaa ee tirada badnaa ee meesha lagu laayay ayagu inay dileen iyaguna sabab ay u ahaayeen dilkooda insha Allah taala xalaqada dambe oo aan jeclahay inaan ku soo aadiyo maalinta Caashuura ayaan ka hadli doonaa وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته